بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalay aan jeclaa meel walba aad joogtiin waan salaamay inna lillaah wa inna ilaahi raajicuun inna lillaah wa inna ilaahi raajicuun. halkan waxaan tacsiyo tiiraaya leh uga dirayaa marna walaashay marna saaxiibaday aan dunida ugu jeclaa hooyo fartuun. allah ku naxariisto qabrigaaga ilaahay waasaca kaaga dhigo. ilaahay waxaan kaaga baryayaa marti la jecel yahay inuu ilaahay kaa dhigo. waayo waxaad ahayd hooyo qalbi wanaagsan, waayo waxaad ahayd hooyo qalbi nadiif ah, waayo waxaad ahayd hooyo qalbi wanaagsan ayay ahayd hooyo fartuun. waxay ahayd qof aad iyo aad intuu qof qalbi wanaagsan yahay qalbi wanaagsan. waxay ahayd qof islaamka ilaahay u macaynta, qofka runtii inaa ka sheegtidaa fiican. waxa haddii soo kiciyey ay tahay dad ayaa waxaan arkaya social media, walaalayaal oo islaan ma tihdin miya, maxaad ka heshiin viyuuska qaabdarada aad ugu raadinaysiin, ma sida walaashay adnoo kale ugu surtacisiiyeysiin qofka. laakiin ma ahan in aad qalad aad ka fahantiin qofka wuu dhintay, qof dhintay ma soo laabanayo. laakiin inaad si qaldan viyuus u raadisiin waa laga wanaagsan yahay. ilaahay ka cabsada, adduunyadan qof walbo maalintiisa ayuu baxayaa. hooyo fartuun waxay ahayd qof wanaagsan, weligeed xumaata social media way ku jirtay, weligeed xumaata kuma soo bandhigin, weligeed waxay ka talin jirtay, weligeedna ay jeclayd inay Soomaaliya nabad noqoto. akhyaare hooyo fartuun waxay ahayd qof aan aad inta social media ku jiro. waa hooyooyin badan ayay ku jiraan social media oo ani aan ka mid ahay. qof walba wuu iska mashquulsan yahay, ilmihiisa danihiisa iyo reerihiisa ayuu ku mashquulsan yahay. laakiin ayada waxay ahayd dadka social media ku jiro qofka ugu wanaagsan. waayo mar walba waxaa jecleed horumarkayga, mar walba waxaa jecleed maanta dukaankana dhex fadhiyo qofka ka dambeeyay martiin inaa ogaatiin, inaa hargaar qof ka dambeeyay martiin inaa ogaatiin. ayada ahayd waxay u ahayd harya habeen way dhiirigelin jirtay. waxa ii ahayd walaashaygi weyn. waxay ii ahayd walaashaygi weyn, waxay ii ahayd walaal qalbi wanaagsan, mar walbana ay dhiirigelisay. oo intaan oynahay ha u mahaynina show macaani show. waayo qofka keliya oo dareemi kara saaxiibkiis markuu ka dhinto oo keliya ama walaashiis ay ka dhimata ayaa dareemi karaa. war hal ma aan karo waa inay aabbaha dhalayn oo keliya. waxaa qofka dar ilaahay aa ku walaaloodin. mar walba waxay dhihi jirtay hore u soco gadaal ha soo fiirin, ilmahaga korso, ilmahaga dinta ku barbaaray. laakiin waxaa cilliga hayaa maanta anigu arkay qabrigeeda iyo meel lagu duugaayo. dan iyo duruuf aana kala dheeraysay. waxaan u dhimatay cudurka corona. ma aan cudurka corona keliya, malag waaye. qofka markuu dhimanayo sabab ayuu ku dhintaa, ilaahay sabab ayuu u sameeyaa. laakiin ilaahay waxaa uga baryay xanuun iyo dhibaato badan ayay martay. ilaahay inuu ka dhigo marti la jecel yahay. laakiin waxaa ku qaldantiin dadkiinaan social media qaladka ka fahmay. waxaa ku qaldantiin qofka markuu dhinto waxaa qaladaadkiisa iyo wuxuu ahaanaad u raadisiin. maxaa qofka u fafaagtiin? hadda maanta aniga oo sidan iila hadlaayo beri waan dhimanaya. markaa dhinto muuqaaladeeda inta xun mooye inta samcid soo bandhigayso ma jirto. waaya ku dhacda Soomaaliya, waa ii sheega. qof dhintay hadda ma inigu horaya, qof walbuu dhimanaya. adiga ilaah fiirsanaysid waa dhimanaysaa. meel lagu soo jiro ilaaha og.
laakiin maahan inaad qofka qalad ka tafsiiratid. qof walba oo islaan eh waxaan ilaahay uga baryayaa inta hanuunsan inuu ilaahay hanuunka ku wado, inta hanuunsanan inuu ilaahay soo hanuuniyo. ilaahay subxaana qaadir ah waxaa uga barya oo mar walbana ilaahay uga baryi doonaa walaashay Fartuun. marna way Fartuun aad u taqaaniin inuu ilaahay qabrigeeda waasac uga dhigo, janno firdowsna ay gasho, kitaabkeedana tii gacanta laga siiyey ay noqoto. waayo waxay ahayd qof diin badan, waxay ahayd qof salaad badan, waayo waxay ahayd qof markay ku soo wacdo wixii aad ku qaldan tahay kuu sheegayso. aniga Fatxi ah inaa riwaayadaha joojiyo qofka ka dambeeyey marabtiin inaa ogaatiin, ayada ayaa ka dambeysay. waayo waxay igu waanisay inaan adduunka wax fiican uga tago, aan uga tagin taariikh anoo mujaajilista ah. waayo waxay ahayd qof nin walba ay dhiirigelisa. qofka wanaagiisa inaad ka sheekayso mooye ma ahan inaad xumaatidiisa qodqodid.